marka ilaahay aynu ka baqno, ilaahay aynu ka cabsanno. taas marka waxay ahayd caamulfiil, caamulfiil weeyaan. xaaladii carabta marka sidaasay ahayd. jahligaasina way ku jiri jireen aynu soo sheegnay. caalamkii oo jahli la ciiraya, oo wada mugdi ah, la israacdaysanaya, qabaa'ilku isdilayo, oo maaragtaa meel walbaaba dulmi iyo mugdi iyo maaragtaa lagu dhex jira, ayaa marqura ilaahay uu la doonay caalamka nuur. qoraxdii baa soo baxday, cadceeddii baa soo baxday, fallaaraheedii bay caalamkii ku sintay. waa kan qoraxdii oo in yar u soo baxaysa, oo cadceeddii fallaarihii maaragtaa soo arki maysaan. halkaasaa neecaw macaan oo qabow ayaa caalamka dushiisa dhabatay. waxaa dhashay saxaraha maka ku dhashay محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وسلم. وقارمه عيسى دبدي لح بقل سنويان. وإذا هو النبي قام مركو تغو النبي كلا لدري جري ويسكو حيجي جرين. لكن ما انت وحكى لا دعي اسبدل بعالم كدعي عيسى دبدي عيسى نبي الله عيسى عليه السلام مركي سمد الله قاضي او الهي او كوري ولي دبديد لما صادرين رسول الله ما صادرين مدلح بقل سنه ان كدو مركا دبديد وادونكي مجدي او غلي دينتي نبي الله عيسى اي سي بابعدي او لا بدلي وعالمكي او دن مجدي جهلي ظلمي او ساميي ayaa waxaa la soo diray محمد ابن عبد الله. محمد ayaa wuxuu ku dhashay saxarihii Makka ya saxari Makka wuxuuna ku dhashay shacbi Abi Talib buuraha kulmaheeda guriyihii ku yaalay gurigii Abu Talib ayuu ku dhashay محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. waa goorma maalin isniin ah ayuu dhashay rasuulkeena maalin isniin ah subax isniin ah ayuu dhashay bisha rabiicul awwal caamul fiil bimakka ayuu ku dhashay sanada la dhihi jiray caamul fiil. waxaa soo dhan rasuulku waxa u sii diyaariyay ilaahay laga soo bilaabo nabiyullaahi ibraahim. makka waa diyaar, halka ayaa rasuulku ku dhashay. marka rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xalaqadii hore waxaan iri rasuulku wuxuu ahaa nuur ayuu ahaa, inuu nuur ahaa, caalamkana uu nuur keenay, qalbiyadeenna oo dhanna uu ka buuxiyey nuur. waxaa daliil kuugu ah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi hadalkiisa. isagaa wuxuu dhahayaa xadiis saxiixana uu ku dhahayaa ana dacwatu abi ibraahim wa bushraa ciisa ورأت أمي أنه يخرج منها نور نور أضاءت منه قصور الشام. يا سلام. أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم. أنا وحان أهي دعوذي نبي الله إبراهيم أيان أهي نبي الله إبراهيم دعوذي سي أيان أهي دعاني ودعيي سببتاد أيان كل شيء. وبشرى عيسى نبي الله عيسى بشارينتي وكبشاريي وبشاري أهل كتابك عالمك. هو يدين وحي أركتي مركي أي إدى الشيء أما إدى ليسي وحي أركتي نور كصوبحايا الله. وآمن بنت وهب أيا وحا كصوبحي نور أيا كصوبحي. ومركي إدى لنبتي ويان nuurkii ka soo baxay ayaa wuxuu ifiyey qusuuru shaam. caalamkao dhan shaam guryihii bay aragtay oo uu nuurkii qabtay. caalamkii oo dhan baa ifay markuu Muxamed dhalanayay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. marka seebuu u ahaa dacwatu ibraahim. ana dacwatu abi ibraahim siduu ku ahaa waatan nabiyullaahi ibraahim uu leeyahay markuu kacbada dhiso isagoo u diyaarinayo wiilkan yar ee iman doona si ay kacbadan u noqoto ay Muxamed ugu noqoto qiblo isaga iyo ummadiisa. waatan uu duceynayo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam naxariis badana. waatan uu leeyahay rabbana wabcath fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim. ilaahow ka soo saar ya dadkan dhexdooda carabta dhexdooda
waxaad ka soo saartaa rasuul iyaga ka mid ah jaziirat alcarab ka soo saar rasuul iyaga ka dhasha dhexdooda rasuul ka soo saar oo ku dul akriya aayaadkaaga jahligu uga baqaayay bal waxay ku jireen nabiyullahi ibraahim goortuu sii ogaaday fiiriyaa u sheegay allah waa u sheegay ka saara ku dul akriya aayaadkaaga ku dul akriya oo kitaabka bara xikmadda bara ya oo tahira waxyaabaha qurunka ah caadooyinka xunxun ee qabiixa ah sayi-a ah waxaan ay ku sugan yihiin mugdiga ka saara oo tahira nafafyaalkooda caqiidadooda diintooda u tahira nabigaas ka soo saar inaka anta alcaziizu alxakiim allah ducadaas ayaan ahay ilaahay ducadii nabiyullahi ibraahim wuu aqbalay waa ka moxamed maanta waa laga soo saaray carabtii waxaan ahay buu yidhi bushraa ciisa nabiyullahi ciisana waatan uu ugu bishaaraynayo intaanu tegin ka hor oo uu leeyahay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed gadaashii waxaan idinkugu bishaaraynayaa markaan taga dabadeed waxaa iman doona rasuul la dhaho muxamed rasuul la dhaha moxamed baa iman doona rasuulkaas waa inaad raacdaan waa aakhiru waa ke waa nabiyullah waa nabiyu aakhir zamaan nabi ka dambeeya ma leh nabi ka dambeeyaa ma leh khaatimu nabiyiin weeyaan yah kow marka uu leeyahay wara'at ummii iyo xadiiskii inta ugu dambaysa waata uu leeyahay maaragta wara'at ummii anahu yakruju minha nuurun adaa'at minhu qusuur الsham nuurka ay aragtayna waa kan ya aamino nuurka ay aragtay markuu moxamed dhalanayey ilaahay baa inoo sheegaayo waa kan uu leeyahay qad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin ya ilaahay xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuur ayaa idinkaga yimid nuur qalbiyadiina nuuriya idinka saara mugdiga ya mugdiga idinka saara iyo kitaab aayadiisu cadcad yihiin wax walbaba idin caddaynaaya walaalayaal waxaan filayaa waktigii saacaddii barkii halkaasay ku dhamaatay waktiga maxaa ka orod badan min calaamaati saaca weeyaan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa hadduu ilaahay idmo habeenka xigaa waxa weeyaan habeenka arbacada ah marka hadduu ilaahay yidhaahda waana wadi doonaa intuu ilaahay naga karsiiyey ilaa iyo geerida rasuulka ayaanu wadi doonaa caawana waxay ahayd xalaqadii ugu horeysay baro rasuulkaaga xalaqadii ugu horeysay baro rasuulkaaga intaas wixii maaragtaa sibqulisaan ah iyo khata ah ama halmaan ah waa xaggayga iyo xagga shaydaan wixii tawfiiq ah iyo hadal si fiican aan u iri wixii saxi aan sheegayna waa tawfiiq min allah weeyaan xagga ilaahay bay ka yimaadeen ilaahay waxaan ka barya ilaahay waxaan ka magangelayaa in aan noqdo buundo aad ku gudubtaan ama jisri aad ku gudubtaan oo aad idin geysa jannadii kadibna lagu tuuro cadaabkii lagu tuuro inaan noqdo ayaan ilaahay ka magangelayaa ilaahay waxaan idinkaga baryayaa annagoo dhan inooga baryayaa inuu inagu anfaco kuwii wax ku qaata sababta aan u akrinayna siiradaasna waxa weeyaan inaanu jeclaana rasuulkeena dabadeedna tusaale inuu inoo noqdo rasuulka runtii si fiican ayaan ma aragtaa u sharxi doonaa oo ah anigoo weliba inta xikmadda ah iyo waxyaabaha aan ka qaadanayna siirada aan ka faa'iidaysanayna anoo carabka ku dhufan doona inta badana siiradan waxaa aan ugu talagalay waa ciyaalkeena iyo dhalinyaradeenna iyo haweenka weeyaan haweenka dadka maaragta jaamacadaha ama tacliimta sare waxaa laga yaabaa in ay ku yara yar tahay waxa weeyaan giddigeena arday baynu nahay culimadu waynu u baahan nahay siirooyinkooda waynu u baahan nahay giddigeena waa inaan culimada waaweyn khaasatan culimada soomaaliyeed ee ku takhasusay siirada waa kama maarano waa inaan kitaabadoodii dib u raacanaa marka wixii khaldaada ama wixii dhaliil ah ee aad ku aragtaan siiradan inta aan wado walaalkiinaan ahay wiilkiinaan ahay ardaygii baan ahay marka waa inaad iisoo sheegtaan anigoo ku faraxsan ayaan runtii ma aragtaa wax ka qaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryayaa camalkan inuu ka yeelo camal isaga dartii loo qabtay camal isaga dartii loo qabtay khaalisan liwajhihi alkariim
inuu ilaahay iga dheereeyo istustus inuu ilaahay iga dheereeyo idinkana inuu ilaahay idinku anfaco fadhiga aad fadhidaan saacadda iyo barka aad meesha xabiska ku tihiin oo dhegihiinii aad waxa kale ku dhegaysan laheedeen aad amaahiseen aad u xabisteen ilaahay dartii rasuulkaas siiradiisa inaad ku maqashaan taariikhdiisa aad ku maqashaan si uu maaragtaa tusaale iyo kudayasho iyo qudu uu idinkugu noqdo dhegihiina iyo maqalkiina iyo xubnaha caawa halkaa aad la fadhidaan giddigeed ilaahay waxa haydin ilaaliyo ilaahay haydin xifdiyo ilaahay haydinka abaaliyo ilaahay idima kala dhantaalo ilaahay iyo maaragtaa aad ilaahay aad uga tagtaan oo ilaahay aad la kulantaan inuu ilaahay idin ilaaliyo ilaahay uu miisaankiina xasanaadka ahaa yeelo ilaahay uu idinku anfaco rasuulka aanu ka sheekaynaynana maciisa inuu aakhira jannat lfirdows inuuna geeyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu